subax kasta waxaan halkan u istaagaa rajo cusub inkastoo jeebkaygu madhan yahay qalbigayga weli wuxuu rumaysan yahay in maalin wanaagsan iman doonto maanta waa maalin kale oo shaqo laakiin mar walba waxaan dareemaa in qalbigaygu wax kala sugayo subxaanallah gabadhaasi waxay iftiimisay suuqa oo dhan imise ayay yihiin karootadani haddii adiga aad rabto qiimaha wuu yar yahay mararka qaar waa wanaagsan tahay in la xasuusto cidda suuqa dhabta ah leh saaxiibkay indhahaaga waxay ii sheegayaan wax ka badan iibinta khudaar suuqan qof walba wuu og yahay magacaaga laakiin maanta waxaan doonayaa wax ka qaalisan khudaarta waxaad u muuqataa qof qalbi fiican leh qofka qalbiga fiican leh mar walba wuxuu rajaynayaa qof fahma wiilkaas saboolka ah ma oga cidda uu la tartamayo haddii aad rabto waan kala fogayn karnaa waxaa laga yaabaa inaan sabool ahay laakiin qalbigaygu wuxuu rabaa inuu iyada ilaaliyo waxaad u eg tahay nin jeceyl galay waxaan ka baqayaa hal shay maxaa in aanan awoodin inaan farxad siiyo gabadh sidaas u qurux badan ma aha inay suuqa ka shaqayso haddii aad rabto gabadha hal qof ayaa jidka kaa xanibaya wiilkaas khudaarta iibiya isaga maanta faa'iido badan ma jirin laakiin haddana waan ku faraxsanahay wiilkaas qalbigiisa waa mid nadiif ah laakiin noloshu mar walba ma fududa waxaan rabay inaan ku mahad celiyo aniga maanta waxaad iga dhigtay inaan dareemo farxadda dhabta ah waa inaan arko adiga oo dhoola cadaynaya wiilkaasi wuxuu ila ciyaarayaa nasiibkiisa ha welwelin waxaan samayn doonaa qorshe in gabadhu ay aragto in saboolnimadu aysan mustaqbal lahayn waxaan rabaa inaad faafiso war in wiilka khudaarta iibiye uu yahay qof aan la aamini karin lacag intee la eg lacag aad noloshaada ku beddesho maanta waa maalin cusub waxaan rajaynayaa inay iyaduna timaado ma maqashay waxaa la yidhi wuu khiyaaneeyaa dadka runtii waxaan u malaynayay inuu wanaagsan yahay maxaan maqlay ma runbaa hadda qalbigeedu wuu shaki galay waa tallaabadii ugu horraysay marka kalsoonidu jabto waa wakhtiga ugu habboon in la galo maxaa dhacay maanta saaxiib waxbaa socda dadku waxay bilaabeen hadal noocee ah in aad khiyaano samayso maxaa isbeddelay runta mar walla ma guulaysataa mise lacagta ayaa ka xoog badan